قصة ما أنت يديها ما قصة أوجبة وقصة جيجينا كذا وقصة أنت أنا تقول إنهرت أنا يا رولالكين إبراهيم أسود وده إبراهيم سودو ولالك إبراهيم فريسو أدنك السلامي إبراهيم وندوهي سودو برنامج مسامح كريم إبراهيم وحكم دي هاي شغالة جامعة إبراهيم جامعة سوت هنا جامعة أسر كورن هوليدا إيجورن قويسكي لما تدوي في عين هولوك وما كلا دجنا ها الحمد لله إن هذا باقود كنا قصنا قلنا إبراهيم سبت حكم ويبي قصة إبراهيم واحد دارنتها هي سجى إنتيس خلاف وين وساق على دح مري مدة سنة جاري سنة سجى إنتيسو ما هو هذا أنا ما ديك شكل دونا قصة سيتها هاي إبراهيم وحر علي قبل لي يرادو ناهدا دأدينا واحد شرتا أفري لا تنصروا وحكو ضري نين دأدي شيء شرتو لحدن شر يدا دأدي أفري لا تنشر قفكو سينا ولحدن شر أديك إبراهيم ودأدو يمسجر راح تشيل ستة هي كنت وكوين هنا وكوين يا إبراهيم وحي إبراهيم واحد شيل ستة هي كنت تنشر نيكو كدر قبل سنة ولحدن شر هذا ناهدا وقبل وروح بدن وناكسن أخلاق له ما نربتني جورستو ويكديدي خلاف أياك لا دحق لي يدي أبيه حسكدي إنه قنعيو إلا وكجاره هير أن أران كرنت ده وقصبي سكستبها طبعا وكو قنعي قبدي إنه جورستو إنك اللي حدن شركة إما ككل دادي سوا صدق اللي حدن شركة في اللي حدن شركة مالها ناهي لوي جورستي نصير حمو نينكي قبضه وحقوي تضبع شو وانكو يبيتكو قصباطة كدب نو صفري وارهن ويجيرتا سما محو فرينا وارهن نادية وحاو دعي أراس في عن كدب وحاو يقولين مقالة الإسكندرية كدب تدبع عشو هالكاسي تدبع عشو سو جوجين مركي تدبع عشو سو جوجين ويسو نقدين قبدي بقولي نو كاني يسوقون اسكن نقدي يسوقون وحبا نو شيغين waxa dhacday marka gabadhayda markastoo nin u keeno aan ilaahdo ninkan waan ku siinayaa way diidi jirtay ilaa ay imikana way diidaa ilaa ay iminkeynteeda wadaba socda marba nin kastoo fiican aan isirado u dhaqi karaya ayaan u keena waana iga diidaa afar hablood ayaan dhalay laba waa la qabaa oo waxay leeyihiin caruuro midna imika la guursanaya midna waa naadiye waa joogtaa inantii ugu yareed imika waa la soo doontay waana la meersaday ka ilamay haboonayn iyadoo tii weyneed ay joogto inaan tiireed aroos u sameeyo oo aan siiyo aniguna marka waxa ka cadhooda inay hablo ilama hadasho kay aragtana way dhaaftaa way cadhaysan tahay oo salaantayga ma qaado waxay joogtaa guriga eedadeed kadibna markaan 20 casho kadib adigu masiiro weydiisay inaad xogaa gaf ka gashay ama dambi aad ka gashay inantaada waan dareensanahay inaan gaf ka galay inaad dulmidayna dareensanahay waan dulmiyay gabadh 24 jira ayaad waxaad ku dartay 60 jira oo waliba haddana 27 la soo qabay iyadoo la soo furay lagu keenay waan soogahay inaan khalad ka galay waan khalad weyn ku sameeyay wada fiirsanay waanan ogahay laakiin iyadu guurka teer halay bay ka ahayd marka go'aankaygi anigu aan ku qasbay ayay ku ogolaatay adigu sid ku keentay inaad u guuriso gabadhaada nin 60 jira oo adigaba ka weyn way dhacday marka wax kastoo dhacayba way iga ogolaatay iga aqbashay in guursato iyada ayaa ka aqbashay marka miya mise adiga ku qasbay maya ma khasbin maya waad qasabtay maya ma khasbin takayirba xorriyadeeda ku guursatay gurigaagu waa dimuqraadiyad macnaha gurigaagu waa dimuqraadiyad sidoo loo rabitaankeeda ayay ku guursatay adigu noloshooda ma farageliso mid walba dooqeeda ayay la timaadaa waan fahmay horta marka hore waan kaaga mahad celinayay maashaad barnaamijkan aad timid si kastay gabadhaadu kugu soo noqon saxda barnaamijkan dhexdiisa waa kugu caawinayaa bal iyadana aan eegno أنا وضع أجنو بل إني أقلاتي ضلب كي عن خد البضي إلهي وحن كرجيني إني أقلاتينا حلقة شاشة دايق
kusoo dhawo barnaamijka naahida. waan dhowahay waa mahadsantahay. ahlan wasahlan naahida, iga waran xaalkaaga. alxamdulilah waa wanaagsanahay. iga waran maxaad qabataa se maxaad ka shaqaysaa? waqti xaadirkan anu ma shaqeeyo. ma shaqaysid? maxaad barateena adigu markaa? cilmiga beeraha. cilmiga beeraha. weli shaqa maad helin iminka miyaa? may weli waa raadiyaa. ma lagu guursadeena? haa. iminka miyaa lagu qabaanaa? may waa laysoo furay. iga waran xidhiirka qoyskiina idiga dhexeeya iyo walaalaha. way fiican yihiin. maasha allah. haa alxamdulilah. hooyo ma nooshaynaa? haa. ma joogtaa? haa way joogtaa. xidhiir fiican baad wada leedihin soo maha? haa xidhiirkaygu wuu wacan yahay. aabbana iga waran xaalkiisa seenan xidhiirkiinu wanaagsaneen maxaa dhacay? maxaa sababayna? dhib khusaysa guurkaygiiyo waxaas. sabab nooceeya ayuu guurkaaga u lahaa markaa? aabbaa isagu mar walba guur buu ii soo bandhigi jiray, aniguna guurkaasaan yara diidi jiray, markaasaasan isku khilaafna anigii aabbahay. ma garanaysaa sababtaan kuugu yeedhnay barnaamijkan? may ma garanayo. qof ka cadhaysiiyey, qof farxad geliyey, qof fikirkiisa ku cabirta, jeclaan lahaana inuu raargelin sameeyo. adiga innaba qof maskaxdaada ma ku soo dhacaya? may sidaa awgeed mar labaad ayaan kaaga mahad celinayaa sidaad ii aqbashay barnaamijkan aad qayb uga noqotay. runtii aniga maaha qofka soo dalbaday, qof baa jira adiga ku doonaya, aniguna dhexdhexaadiya ayaan ka hay inaan fariintaa ku soo gaarsiiyo. qofkaasina wuxuu doonayaa inuu kugula kulmo istuudiyahan. barnaamijkan aan ku guda jirna waxaa la yidhahdaa almusaamax kariim, qaada cafis. musaamax kariima waa barnaamij fiican. hadda ma doonaysa inaad ogaato? haa waan doonayaa. shaashaddaas ayuu ka dambeeyaa, shaashaddaa egbal. aabbo miyaad garanaysaana? haa waa aabbahay. oo isaga kadii sheegaysay inaad iskhilaafteen oo xoogaa isku yar cadhaysan tihiin soo maa? haa in yar waxoogaaya. in yar? haa. muddo intee leeg baad imika isku cadhaysantihiinna aydan wada hadal? waxaan iskhilaafsannahay sanad. ma intii guurkayga ka dambaysoo dhan. inooga sheekay qisada haddaba, inoo sheeg si wuxuu jiraa. siduu igu sheegay sheekada aniga ima cajaba gelin. inoo sheeg. sidaan maqlay yani inuu kugu qasbay guur aad raalli ka ahayn. aabbaha da'diisu ay tahay 53 jir, ninku kugu darayna ay tahay 60 jir. haa. aabbaha wuu ku qasbay soo maaha? may si toosa imuu qasbin, laakiin markii hore wuu igu dhiirigeliyey, in badanna wuu igu soo celceliyey sheekadan, ilaa aan markii dambe kaga qancay oon anna guurkiisida ku yaalay. dee waana dareemi kartaa haddii waalidkaa ku dhahda ducadaydu waa taa. inkastoo aanay fiicnayn in gabdhaha la qasbo, waa inay iyagu xorriyad u helaan rabitaankooda. ninku kugu daray nin hanti haysta miyuu ahaa? haa wuxuu ahaa qof hanti fara badan haysta. wuxuu ku qabay muddo 7 cisho ah soo maaha? haa 7. oo muxuu kuu furaynaa? aniga awalba waa lay qasbay, laakiin dhibtu dhankiisay ka timid markii dambe. waan gartay. kadibna aabbaha baad u cadhootay, waayana ma weyddiisay sababta? waxaan ugu cadhooday si aanu guur labaad iigu qasbin. laakiin siduu isagu noo sheegay waxaad ugu cadhootay markuu ku guuriyey ninka 60 jirka ah, waanaad ka xumaatay nin intuu ku guursay 7 cisho haddana ku soo furay. haa si weyn. dhaawac baa ku maxaa soo ka xanuun gaaray. badan waalidkaa oo kugu qasbay qof, haddana isagii noloshaadii dareemi waayuu ku xumeeyo. iminka adiga da'daadu waxay jirtaa 25 jir. ninkaa markaad isguursateen ma 23 jir baad ahayd? may 22 jir baan ahaa markii ninkaa laysiiyey. waan gartay. waalidkaa fariin ayuu kuu soo diray, ma ku akhriyaana? ma fariin buu ii soo diray? wuxuu ku leeyahay aabbe, inantaydii qaaliga ahayday naahida agtaadaan soo fadhiisanayaa si aan warqadda kugu akhriyayso. inantaydii naahida aabbe, waan ogahay inaad diyaar u ahayn inaad dhegaysato maanta khaladaadkayga saan kugu sharraxi lahaa, anigoo ah khaladkan kaa galay inaan kuu guuriyey nin kaa weyn. waanan ogahay sababteeda inaan anugu leeyahay oon dhaawac weynna kuu geystay inantaydii qaaliga ahayday. aniguna taas waa ka qoomamaynaya aabbe. waan ogahay inaad wakhti adag aad soo martay
wax badanna ay kaaga lumeen aabe laakiin inantaydii sidaad adigu moodayso aabe anigu hanti kuguma beddelan kumana iibin anigu aabe waxaan kula jeclaa nolol wanaagsan waxaana ninkaa kuugu daray aabo waxaan ku fakiray inaad ku noolaato maanta nolol heersaraa ninkaasna hanti buu lahaa ka fakirayo laakiin sidan lafteedu waaba qalad waxaan malanayaa isagu mala ninka muu anigu ma garanay ninka anigu waxaan u haystaa aabe inay hantidu ee daryeel tahay sidaasaanan kula jeclaa in hantile inaad guursato aabe inantaydii waanan ka qoomameeyey inantaydii dhibka aan kuu geystay laakiin sidaan anigu u malaynayey iyo sidaan kula rabay midnaba maysan noqon inantaydii waxaan barnaamijkan aan kuugu yeedhay waxaan kuu sheegaya inantaydii inaad tahay inanta keliya anugu jeclay adduunka aad baanan ugu xumahay fogaanshahaad iga fog tahay inantaydii waanan qiranayaa inaan anigu khaladkaa galay adiga isaamax inantaydii qaaliga aheeday inaad iga fogaato ma jecli haddaan xumaadiyo haddaan fiicanahayba mar leba anugu aabbahaa baan ahay waanan ku jeclahay wax kastoo dhacana waxaa tahay inantaydii ina saamax inantaydii والمسامح كريم sidee kula tahay adiga wax kastoo dhaca isagu waa aabbahay siduu aabbaha kuu jecel yahay ma u jeceshay adigu haa dabcan sow aabbahay maaha qofna aabbihi ma nici karo siduu noo sheegay aabbaha guriga markaad timaado xataa aabbaha lama hadashid oo ma salaantid anigu runtii dabeecad gaaran xaafadda ka leeyahay mana yihi qof hadal badan sida walaaladayna intaan fadhiisto dadka in badan uma sheekayn karo waan soo galaa waana iska baxaa iyagaaba igu dhahdaa waana soo gashaa waanaad baxdaa un runtii mararka qaarna iyo walaaladay haddaan sii baxayo waan la era hadlaa waan ogaysiiyaa inaad ka fogaato haa maxaa sababaya inaad ka fogaato aabbaha waxba kuu qasbaanaa haa aad isaga dabeecaddiisa sidaasa haye ibraahim la hadal inantaada oo hadallo fiican kula hadal siday noo sheegtay inantaadu kuma necba adiguna aabbaheed baa tahay se iyadu noo sheegtay waa aabbahay wax kastoo dhacaba aniga mar kastaba waa aabbahay bay leedahay inantii la hadal aniga oo inantaydii ma nabcin maba nici karaba waayo de waaba inantaydiiba aadna waan u jecelahay ma qofaa ubadkiisa nici karaa sida runtiiya waxna waan ku khasbaa oo waan ku adaadagahay mararka qaarkood laakiin iyadu waxay u qaadatay inaad necab tahay ood ku dartay weliba nin da'diisu ay jirto 60 jir laakiin way iga aqbashay marka ninka ku darayay oo raalli bay ahayd isbaan fahmin baan maranayaa ma waxaad inantaada ku daraysaa markaa mid adiga kaa weyn haa iyadu way iga oggolaatay naahid ma maqlaysaa way fiicnay inay rabitaankayga ahaato laakiin may ahayn wuu kaaga cadhaysay weliba soo maha haa aad anigu dhib baan u arkayey haddana hadalka aabbahay ayuunbaan waaya meel aan ka maro u sheeg la hadal waa kan sababtaad ugu xanaaqsan tahayna u sheeg aabba adigu mar baad i qasabtay laakiin iminka ma raba inaad qasabtid anigaa dookhayga ciyaaraya xataa haddii aanan guur rabinba laakiin aabbahaa wanaag unbuu kula rabay siduu isagu noo sheegay wixii iminka laga bilaabana inaanu soo dhex gelin dookhaaga ayuu sheegay aniga iminka markii la isoo furan gurigayga imidna aabbahay halkiisii unbuu ka bilaabay maalinba nin cusub buu ii keenayaa anna ma rabo sabab baad u dedejinaysaa idhanta ma guriga ayaa culis ku haysaa doontay tii ka yaraydna maalin dhaweyd baan bixiyey oo waa mise jir iyadu way ka yartahay iyada marka ma iyadaad doonaysa inaad ka horraysiiso tayar mar labaad ceeb ahayn haddii inantii ka yarayd curaddii baa iyadu maya midunbaa ka yar iyada mid baa ka weyn mise labaa ka weyn iyada markaa maya labaa ka weyn iyada laba carruur baanay leeyihiin iyo guri tii yaradna iminkaan bixiyey oo waa mise jir markaa iyadu waa 14 jir oo ma 14 jir baad ku guurisay markaa weliba dunida maanta la joogo nahay dhaqanka beeralayda inantu 14 bay ku guursataa war heedhe hablahan miya ku dhibeen ma culis kugu hayaan maya imay dhibin maxaad kala degdegaysaa markaa noloshiiba hadda bilow tahay hablaha yar marka ma waxaad doonaysaa inay gurigayga dhex fadhiyaan ha joogaan soo carruurtaadii ma aha maya wax wanaagsan kaa khaldan adiga habluhu sidoodaba inay hore u guursadaan waayo ama guriga kaaga jirto oo ma sidan baa farxada 14 jirkii baad leedahay xataa oon guuriyey carruurnimadeediiba miyadaa ka gudubtay saddex u wadaana waa khalad sidaasi waan yaabanahayba ay naadiya soo sax maaha soo saan sheegaya sax maaha waa run sida sheegaysaa
aabbahay markuu ku imaado wuxuu ku odhanaya maado inta leeg bad guriga dhex fadhidaa kuwii kaar yaraa baa la guursaday adigana waa inaan ninkuu doonaa marka isaga waxa ku weyn inaan guriga ka baxno xataa mustaqbalkayga cidduu noo dooraya inaad hablaha saan kula dhaqantaa khalad weyn haddayse dookooga ha ciyaaraane 24 jir baad 60 jir u guurinaysaa oo 60 jir baad waa ku sideesad u wadaanaa hablaha dookooga u daa iyagaa garanaya ma inaad dedejiso hablaha cadaadiska badanna ka yaray aabbaad tahay waxaan doonaya inaan nolol u sameeyo kuwa kaleba waa la soo doontay sidaasaan ku bixiya waana iga oggolaaday maahida waad qasabtay oo tan kalena waad